Doctore waxaad ku soo dhawaataa telefishinka SMS Somali TV marka xiga adigoo noogu bilaabaya magacaaga iyo isbitaalka howlaha aad u qaabilsan tahay waxaad faahfaahin naga siisaa bal dhaawacyada iyo dhimashada isbitaalka soo gaaray aad mahadsantahay telefishinka Somali TV waa idinka mahadcelinaya magacayga Mulid Xaaji Maxamed Maxaad waxa kamid ahay howlwadeenada ka howlgala isbitaal goboleedka degmada Jowhar ee ku yaala xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe Jowhar saakay magaalada Jowhar waxa ka dhacay qarax aad u xoog badan markii ay abaare ahayd xilliga salaada duhur ay soo dhaweyd qaraxaas oo ka dhacay mid kamid ah hoteelada ku yaala magaalada Jowhar agtiisa oo lagu magacaabo Hotel Nuurdoob kadib qaraxaasi waxa isbitaalka la keenay dhaawacyo aad u tiro badan dhaawacyo la keenayna shaqaalihii iyo dhaqaatiirta ka howlgelisay isbitaal goboleedka degmada Jowharne kaalin xoogan ayay ka qaateen oo adeegii caafimaad ee u baahnaayeen way u fuliyeen 90% way ku guuleysteen inay dadkaasi daryeelaan dhaawacyada idin soo gaaray guud ahaan waa imisa haddii aad tirakoobteen dhaawacyada soo gaaray isbitaalka waa ku dhawaad 20 dhaawac ah oo dhaawac inta badan waxay ahaayeen dhaawacyo aad u fudud oo isbitaalka uu la tacaalay laguna guuleystay waxa jiray dhaawacyo xoogaa iyagana iska culus laakiin sidaas ay tahay isbitaalka meel uma jirno waa ku guuleystay in oo baahidooda caafimaad uu meesha uu ku daryeelo waana qaarkoodna isbitaalka ayay jifaan inta badan dhaawacyada waxaa lagu celiyay xaafadooda sababa caafimaadkooda aad u dhaawacyadooda aad u fududa wax dhimasho ah oo dhankiina idin soo gaaray ma jiraa ilaa hadda dhimashada waxaa jirta 3 dhimasho oo ilaa hadda la soo gaarsiiyay isbitaalka labana dumar ay yihiin halna rag uu yahay dhaawacyada marka aan eegno mas'uuliyiinta Hirshabeelle iyo dadka shacabka miyay isugu jiraan mise waxa kaliya dhaawacyadaas soo gaareen mas'uuliyiintii maamulka ee halkaas ku sugnaa dhaawacyada shacab iyo mas'uuliyiinta maamulka Hirshabeelle buu isku jiraan haw ugu badnaadeen mas'uuliyiinta maamulka Hirshabeelle laakiin dhanka shacabka aad u yar yahay tira ahaan mas'uuliyiinta maamulka Hirshabeelle u badneed iyagana dhaawacooda waa kuwa aad u fudud warar baa sheegaya in dhaawacyada qaarkood ee wax looga qaban waayo Jowhar Muqdisho loo soo qaaday arrinkaasi maxaa ka jira dhaawacyo hadda isbitaalka waxa loogu qaban waayay oo aan ognahay oo aan dhahnay referral ama xamar ha loo diro ma jirto laakiin way dhici kartaa mas'uuliyiinta maamulka Hirshabeelle iyaga inay go'aansadeen ay noo qaateen xamar laakiin wax dhaawac isbitaalka waxa loogu qaban waayay ma jirto waa gartay marka xaaladda bukaanada xilligan aad la hadlayso waa bal ka waran xilligan aan kula hadlayo xaaladda bukaanadii la soo gaarsiiyay isbitaalka aad ay u wanaagsan tahay jawigooduna aad ay u degan yahay dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha ka howlgala isbitaalka ayaana gacanta ku haya daryeelkooda caafimaadna bixinaya dhaawacyo ilaa hadda isbitaalka aad ka saarteen oo kuwa fudud ah miyaa jira way jiraan dhaawacyada inta ugu badan ba isbitaalka waa laga saaray oo qaraxa marka aad fiirisid mudane wariye heerka uu la ekaa iyo qasaarihiisma isma laheeno waa alla mahadiisa inta badan dhaawacyada waxay ahaayeen dhaawacyo fudud xaafadahooda lagu celiyay oo xaafadahooda dib loogu diray aad u mahadsantahay